marka hore aad baan idinku hambaliynayaa gurigan cusub iyo xafiisyada cusub haysateen maaliyaddu idin maalgelisay aad iyo aad baan idinku hambaliynayaa soomaalida waxaa tira huwaa wuu kula baray tagaadooda ee qofku hadduu wasaaradda ka madax yahay ama daldan meeshii muujinaysa qaranka xilka u haysaa waa inay ka muuqataa inay meel qaranti waa idinku hambaliynayaa guriga qurux badan waxaynu ka rabnaa inuu shaqo qurux badan noo qabto shaqaalaha suuqa xidha qurux badanna waxaa la rabaa inay wax wanaagsan soo saaraan beeraha waajibaadka saaran waxa weeye kow dadka maanta adduunka dal waliba wuxuu ku dagaalamayaa inuu cuntadiisa helo isagu kaydsado awaloo hub iyo nuclear baa lagu dagaalamaya waxaa soo garab galay cuntadii inaad haysato qofkii aan cuntada haysan waa loo talinaya waxaa laga yaabinaya cunto aanad beeran karayn koofi baa dhacay adduunkaa kala xidhmay dadkii aan waxa beeran dee way baktiya ama silic bay ayay ku dhamaadeen cuntadii qaalidu daydayaa marka waxaynaan isku diidanen dalkeena cunto in ugu filan waa laga soo saari karaa mas-uuliyadda in lasoo saara cidda qaabilsanna waa wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha kama rabna iyadoo inay noqoto wasaaradda wax beerta waa laga saaray inay shaqaalo badan iyadoo beerahay gasho waxaa laga rabaa inay qarankii ku hogaamiso inuu wax soo saaro rayga inu aada garan waxaa laga rabaa qaranka oo dhan gobollo dhan inaad ku hogaamiso inay wax badan soo saaraan marka hore inaad aqoon sheegto marka dambe inaad ku hogaamiso ku dhiirigeliso inay soo baxaan mar saddexaadka waxa soo baxaya inaad u sheegto natiijadeedi waxa soo baxaya inuu taa xoogga saaro weeye labadii sano hore waxaan isku daynay inaynu dad tuusino pilot projects beera tusaale ah taariikh hore raacno ilaa 60kii oo beer iyo xaaxi iyo wajaanu ka bilow wax badan bay tartay dadka waxa arkeen wax la beeran karo way soo jeedtay laakiin inuu dadku wax soo saar xoog la soo saaro ayaynu baahan taa micneedu ma aha waxa islamka nagu dhacda dhulkeenu xoola daaqeen buu baday marka imka waxa dhacday beeraha la doonayaa beeraha la abuuro nin wala meel biska ootay xoolo baa laga oday beerihii waxna laga soo saaray wasaaradda beeruhu haddii ay beer bixiso waa inay ka hubsataa oo og tahay meeshaas inay beer ku habboon tahay laba sanad ugu badnaan gudaheedu waa in meesha wax laga soo saara haddii kaa dhowl xidhashada wasaaradda beeruhu waa inay tallaabada u horeysa iyadu qaadaa meeshaan beer ma tahay kan horaan laysa kusiye maxaad soo saarta waxba xoola daaqin wey maarulka in la xirto muran weyn baa ka dhex taagan xoola dhaqatadii iyo dadka dhulka oodanaya maaha beeraleyda dhulka dadka beeraa dhaqatadu xoola dhaqatadu way ka faa'idaa waxay soo saareen bal baa ka soo go-a xataa hadduu beerta goosto waxaa laga yaaba halkii la beeray inay xoolo badan ku baxaan jilaalkii xun bay ka rifi waxaa ka soo hadhay beertii laakiin dhulka la xanibayaa daran laysankaa bixisa waa inaad dib u jeegaraysaa sanad ninkaa waxba soo saarin oo laysankiisa waxba kama jiraya ta kale ninku intuu beerayo iyo in reserve aho uu ku fidi kara mooyaane dee maad u ilahay inuu xidho mas-uuliyadda koobaad ee idinka saara dhulka waxa weeye hogaaminta dalka wax soo saar inaad ka ilaalisaan dhulka la xanibanayo dhibaato weyn baa dhex taagan beeraleydii iyo dadkii kale oo ah in dadkii xoolaha daaqin lahaa meel ay xoolay geeyaan ay laayihiin taa waan adkeynaya dalkana wax soo saarka iminka soo baxaa miyuu fiican yahay mise wuu hooseeya jawaabta horeysa waxaa bixinaysa wasaaradda beeraha dhulkii wax weyn baa sanad ka soo baxay dabeetana waanu ila qiimeynayna markaa laakiin waxaa laga rabaa sanad walba inaad adu tiraahdo sanadkan halkaas u maraay muxuu hoos ugu dhacay muxuu kor u kacay jawaabahaasa ayaa laydinka rabaa dad badan oo aqoonaad haysataa jaamacadu dad badan bay soo saaraan dhalinyaradu dee iminka nina loo odhan maayo dalkiisa ugu baayacaya waayo shahar iyo taagta waxay ku xiran tahay in horta wax soo saaro markaa waxay diyaar yihiin baan qabaa dadka badankoodu inay iyagu wax yar oo quuto daruuri ku shaqeeyaan markaa beeraha laba qodob imika ka sugayaado maxaa kay dalka u ah research baanu sameynay guddidan insha allah wax badan bay ka tari doontaa dalka waxay inoo sheegi doonaa aqoonta beeraha oo nolosha kow ka ah ciidda wax lagu kala beeri doono siirkeenna talaalkeenna sida loo sameeya xooluhu calaf ay cunaan iminka xoolo gurguurayaa ma jiro
xoole waa inay degaan beeraha laga rabaa inay keento maxaa cunto u wanaagsan beeraha noocyada siida kee loo beerayaa waa mas-uuliyad labaad awal hore haddii dadku cuntada ka doonay xoolina waa la rabaa in loo beero ogaada oo ku dara dee waanad ku bogadayna hawsha qabateen aada iyo aad waa mahadsantihiin haddaynu dibadda wixii Soomaaliya ka baxsan oo eegna maanta mandaqadaynu joognaa waa mandaqad xasarado badan ka socdaan ilaahay wuu inaga nabadgeliyey Soomaaliland waxaan leeyahay talada wanaagsan ee nabadda aynu walaashanayno aynu dalkeenu horumarinayno aynu xajisano doorasho inagu soo socota marxalad doorashanu galay dadka waxaan kula talinayaa ku dardaarayaa inay doorashadu noqoto mid wax noo tarteen wax bay leeyihiin inay noqoto game qurux badan oo si walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo horumar loo galayo aan noqonin mid colaad iyo isnaac iyo kala fogaansho keenta taana qof waliba waxa ku xirantahay siduu ka aaminsan yahay doorashada inay doorashada waxtar tahay inay wax qabs tahay inaan ahayd anaa wax doonaya iyo ana meel ku cararaya taana dadku waxa leeyahay nabadda hala ilaaliyo doorashada hala galo oo loo diyaar garoobo af iyo adibana hala dhawro waayo markuu afka xumaado adinku yimaadaa markaa qofka campaign-ya ay ku heli maayo kursi iyo dad waxa xigtay horumarin iyo wanaag ka hadlo